bismillaahi raxmaani raxiim ku socoto guddiga magacyadooda hoos ku xusan og maamulada isbitaalada Yardamiile iyo Jazeera og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir og taliska nabad sugidda gobolka Banaadir og gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir og gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ujeedo magacaabis guddiga maareynta la wareegista isbitaalada Yardamiile iyo Jazeera ee gobolka Banaadir iyadoo la tixraacayo warqadda sumadeedu tahay daaha maaga agawa eber 43256 eber 21 ee ka soo baxday xafiiska agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar taariikhda markay ahayd 1 bisha 9aad 2021 ujeedkeeduna ahaa soo wareejinta maamulka iyo gacan ku haynta isbitaalada Yardamiile iyo Jazeera ee gobolka Banaadir taasoo ku socotay maamulada labada isbitaal looguna qabtay muddo 7 cisho ah oo ka soo bilaabatay taariikhda ay ka soo baxday warqadda sare ku xusan haddaba maamulka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay guddiga hoos ku xusan si ay ugu shaqeeyaan maareynta iyo agaasinka la wareegista isbitaalada Yardamiile iyo Jazeera ee gobolka Banaadir sidoo kale xaqiijinta sii wadista adeegyada caafimaad ee ka socda labadaas isbitaal magacyada guddiga maxamed maxamuud cadow agaasimaha agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir Seynab Maxamuud Warsame gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Macaawiye Axmed Muudey gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Maxamed Axmed Cantooba agaasimaha guud ee waaxda arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Muxidiin Axmed Dalxa agaasimaha qorsheynta Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaye agaasimaha guud ee howlaha guud mukhtaar maxamed axmed dhagacade agaasimaha xiriirka degmooyinka saalax xasan cumar afayeenka maamulka gobolka Banaadir haddaba guddiga sare ku xusan waxaa aad loogu adkeenayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagalaan howlahooda shaqo ee ku xusan wareegtadaani maamulka labada isbitaal waxaa la farayaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddiga la magacaabay si ay u fuliyaan waajibaadka loo xil saaray si habsame leh fiiro gaar ah inta lagu guda jiro waqtiga la wareegista labada isbitaal waxaa la farayaa maamulada isbitaalka sare ku xusan in aysan wax agab ah ka saari karin xarumahaasi waxaana si gaar ah loo farayaa maamulada degmooyinka Warta Nabadda iyo Xamar Jajab in ay korjoogteeyaan hubiyaanna in labada isbitaal ay hirgeliyeen amarkaani ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha ee taala labada isbitaal ma sanadiin shaqo wacan